Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ku geeriyooday Allaha u naxariistee abwaankii weynaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Maxamed Ibraahim Hadraawi, Allaha u naxariistee, waxa uu ku dhashay magaalada Burco sanadkii 1943. Abwaan Hadraawi isagoo 9 sano jir ah ayaa waxaa adeerkiis u waday dalka Yemen ee magaalada Cadan. Halkaas ayuu waxbarashadiisa aasaasiga iyo dugsiga qur-aankaba ku soo qaatay ilaa uu ka dhammeeyo dugsigiisii sare. Isla magaaladii Cadan ee dalka Yemen oo waxbarashadiisa aasaasiga iyo tan hoose iyo dhexe uu ku soo qaatay, ayuu macallin ka noqday iskuul ku yaala magaalada Cadan. In muddo ah kadib markii uu ku noolaa magaalada Cadan ee dalka Yemen, abwaanka waxa uu u soo wareegay magaalada Muqdisho, markaasi oo ay ka talinaysay dowladdii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Waxa uuna ku biiray Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu isla markaana ka shaqo bilaabay wasaaraddii warfaafinta. Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxa uu ka mid ahaa abwaanada aadka u waaweyn, isla markaana qaaliga ku ah dhammaan Soomaalida agteeda, sida weynna ay u garan og yihiin shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, abwaanka waxa uu maanta ku geeriyooday Allaha u naxariistee magaalada Hargeysa oo in muddo ah uu halkaas ku xanuunsanayay.